السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قال لكم حنا جالنا كيسكي هون سكر عندنا ياي كسر هذا مقال كره دي أنا عصبت أفرق كمريك أو سبسكرايب صار سيا نروح ناتد صدق له لاينا مقال لايك أثرت بيكوز لايك وحين نجس عيد الساعين مقال كأو تطبر وجارو واي هي ما تحكي هذا دورنا عرنت كمر سواني برها بلشة هيستا عرنت إن شاء الله يعني ده كسر هذا البرس وحنود باريتان إنا وحصوه بيو أيام وذي إنا وحول بو ayago dhameystiran aba full information aba cadeymo buuxin halka la yimaado sidoo kale waxaan sugaayay in fanaanka uu ka hadlo arinta una sheego waxa inay qalad yihiin aba inay sax yihiin sida ay waxa ay u jiraan hadaba saacado ka hor qabar sugaana ayaa ka hadlay arintan lagu heesto in heesta Axmed ay ku dhex jirto shahaadinta imniyaadka loo yaqaano wadamada gaalada inta badan ka shaqeeyaan sidoo kale to cadeymo kale way jiraan oo ah sawiro muujinayo in calaamadaha shahaadintaasi ay u saarayeen qabar sugaan dhankan sida sawirka halkan ka aragtaan hadaba fanaanka ayaa ka hadlay fanaanka hadalkiisa bis ma faaritaan kalena waa soo sameeyay ugu horeynba waxa soo daawo doona qabar sugaani sida uu arintan ugu falceliyay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhammaan ummadda Soomaaliyeed salaam iyo meel kasta daafaha caalamka joogaan waxaan rabaa su'aalo badan oo qalbigooda ka buuxaya inaan uga jawaabo maalmahanba waxa dhex socda baraha bulshada ama ummadda dhexdeeda farsiimo ama ما شاء الله أرتضى قمر سنودي كام وقته ما شاء الله سلاده كقادة إلي كوحة شرب ضيالة أي هود وقلنيان واحنا دينتك بحي ما شيء ده كعبد إلهي بقى horta dadka diintu ka baxay way uga fiiran dhigi karaa because ma fududa qof islaamka inaad diintu ka baxay it's not easy wax fudud ma ina qof gaal ku tilmaamtay waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan ahay qof islaama oo ilaahay iyo nabigiisa maxamed bajal allahumma sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah sida wanaagsan ee arintan lagu heystaa ugu farciisa ka hamad celina أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan rabaa sidoo kale inaan ka jawaabo heesta iyo sawirka sawirku kaliya wuxuu iga ahaa xirimaad ama style aan ku arkay sawirka wuxuu iga ahaa ayuu dhahay style ayuu iga ahaa ma fahansanin horta waxaan fahansanin lama sameeyo sawirkan waxa ka muuqato calaamada shaadinta lagu garto sawirada social media lagu isticmaalo dadna sida darteed ana nice ka samaystay oo sidii unana waxirtay videoga hees ama heesta badana baraha bulshada la soo dhigayo heesta waay waxa shaki weyn dhalisay waa heesta bal muxuu ka dhigi doonaa waxay ahayd heesan anigu codkeeda duubay laakiin anigu codka aan duubay kuma jirin codkan okay wuxuu dhahay macnaha aniga codkeyga ma heesta waan duubaani balse meesha imniyaad la dhahayo anigu kuma jirno leh waayahay waan baasanta qamar inta la ka rabay muuqaalka qamar halkaas ay ku ay keenayna hadaba baaritaanka asmiya ayaan inaan idin sheego marka iyo wax walba sida u soo baaray a few moments later hadaba markii wax badan ay soo qiimeeyay maadaama arintan shal la hata aan guda jiray aan ka gaabsaday inaan ka hadlo waxa ay cadaatay in arinta qamar lagu soo qalday qaladka dhan ay leeyihiin channelka la soo dhigay heesta qamar sugaan wareenba waxa la fiiri doonaa channelka la soo dhigay heesta qamar sugaan iyo cidda edit gareys hadii ay ku qoran tahay qofka edit gareeyay ama qofka muusikada garaacay dadkaas ay arintan ka dambeeyo waxaan aaminsanahay inay tahay arin qamar sugaan arintan lagu magaranaysaa baxal lagu gelinayo heesta ayaan geed doonaa waxaa fiiri doonaa qofta u garaacay muusikada ama qofka codka ka qabtay oo codka waa asaga editorka fiiri doonaa haday ku qoran yihiin sorry kuma qorna balse waxaa fiiri doonaa channelka la soo dhigay waxaa la dhahaa channelka la soo dhigay Y3A production boqolkiiba 90 waxaa aaminsanahay channelkan in arintan qamar uu ka dambeeyo qabarna muusan beenin in heesta ay ku dhex jirto ilminiyaad inay ka dhex yeerayso waa uu qiray balse wuxuu dhahay aniga miihi qofka edit gareeyo cod kale qabto laakiin codkaas kale aniga miihi haddaba wax abaarna waxa halkaas ka cad
amba halkaasi oo cadeyn buuxda aan u baahnayba in dadka muusikada garaacay in arrintan ay ka dambeeyeen amba qofka edit gareeyay labadaas mid noqon karaa amba kan muusikada garaacay amba kan edit gareeyay ay labadaas ay mid noqon karaa taasna waxay ku cadeynaysaa in arrintan qamar lagu shirqoole laguna siray dadkaas jalankaas kala hala baaro hala soo ogaado dadkaasna 100% waxay xiriir leeyihiin shayaadiinta xiriir leeyihiin taa xagga dhig arrinta isteelka ku soo hartay inta oo saartay calaamada shayaadiinta ilminaadka maadaama uu dhahay waxa iga yahay isteel waa kugu qaadanayna waana ka aqbalnay balse weligaa iska ilaali jeegada iyo waxyaabaha isla jeega saaro balse calaamado shayaadiina jiraan calaamado yuhuuda jiraan calaamado kristana jiraan calaamado shiiciya jiraan sidaas darteed iska ilaali waxa aad saaranaysid waxa ay yihiin maadaama aad dhahdo marka aniga ma ogeyn isteel iga yahay laga yaaba kan kuu jaraya xataa inuusan asoo ogeyn oo kuu jaray because markaas timajara aadayso kaleeto sabira meesha ku dhagan oo isteelka aad dooranayso kaleeto laga yaaba marka ilaa isteel doorate isteelkaasna aadan ogeyn wuxuu yahay laga oo lagu jaray taa xagga dhigbo dhalinyaro badan u jartaan waxa isteel idoo kale balse arrinta baaritaanka u baahan waxay tahay journalkaas la soo dhigay waa in la weydiiyaa qofkii edit gareeyay heesta waa in la weydiiyaa qofkii muusikada garaacay labadaas mid ayuu noqon karaa labadaas midkii uu noqdane ilminaadka ayuu xiriir leeyahay shayaadiintaas ayuu xiriir leeyahay soomaalidana in laga dhex qabto ayay u baahan tahay qofka noocaasi oo kale taa qamar leemaa baaritaan ayaa wadnaa fanaaniin kalena way jiraan maadaama journalkan inta badan weliba journalkan wuxuu soo dhigaa heesaha qadar kenyo ayuu soo dhigaa heesiisa mar walbo heesaha qadar kenyo hala baaraa dhila hadii ka dhex yeeraya maadaama journalka lasoo dhigo marka arrintan qamar waa lagu shirqoole 90% sidaas dhahayo haddii uu la ogyahay asaga ilaahay la og laakiin saalaasha sidaani aabaaray sidaani ii cadaatay waa sidaa markii haddii lagu siray journalkaas ayaa eeda iskale 100% journalkaas ma garanayo waxa iskale horta waxaan fiiri doonaa waxyaaba ay soo dhigaan journalkaas heesa la soo dhigaan hadda waxay soo dhigeen hees qadar kenyo uu soo qaaday 4 weeks ka hor haddana qadar kenyo 1 month ka hor qadar kenyo haddana 1 month ka hor qadar kenyo haddana 1 month ka hor haddana muuna kayf 2 bil ka hor haddana roos cadey 3 bil ka hor roos cadey haddana 3 bil ka hor journalkana u baahan in baaritaan lagu sameeyo cidda leh waay 3A production ku qoran journalkaas ayaan aaminsanahay 100% in shayaadiintaas xiriir leeyahay ninkaan dee journalkaas caabi laga yaabo inuu ka duubay free looga dhigay muuqaalka wax free looga dhigay fanaaniinta markay soo baxayaan journalka garab qabtaan ayagana qarash lagu raadiyo ayagana waxa laga caabiyaa in wax free lagu soo dhigo ayaa laga caabiyaa marka laga yaabo marka dadkaas inay qaldeen balse waxa marnaba been ahayn oo ay indhaha laga dabooli karin in heesta ilminaad ay ku dhex jirto been maata waa xaqiiq okay guys ku meesha daawashada muuqaalka xinoo bal muuqaalkiisa xiga iyo anaga caafimaad qabno